Napoleon Bonaparte weerarkii uu ku qaaday Ruushka 1812 waxay meesha kula kulmeen baahi daran qabowna waa jiray sidaa darteed ciidankii waxay ku qasbanaadeen fardihii ay wateen inay cunaan ay ku qasbanaadeen wadna gudoomiye Bilaal wuxuu ka tirsan yahay qaybta raashinka anaga ma sheegin qiraalkiisa hayna raashinka markii la yiraahdo waa soo iibinta iyo karinta iyo sidoo kale qaybinta cuntada waa sida aan ka war hayno argagixisadu waxay u howlgashaa sida ciidamada kale askari aanan raashin la siinin lama howlgelin karo waxa uu sii marka waa saddex shay waa carbohydrate waa vitamins iyo proteins uu siiya si ay dhagartoodii u laba jibaaraan mudan gudoomiye intaas askarigi aanan la siinin dagaal ma gali karo maskaxna wax ma ka soo saari karo adduunyada taariikhdu hadda waxay diiwaan gelisay ciidan u jabay baahi darteed waa tiro badan yihiin waxa kamid ahaa Napoleon Bonaparte weerarkii uu ku qaaday Ruushka 1812 dagaalkaas markuu qaaday wuxuu watay ninka odaga 600,000 oo askari u watay Ruushka markuu galay ciidanka Ruushka waxay isticmaaleen insaxaab tactical ciidan isticmaaleen dib ay u baxeen waxay ka gubeen muxuu ahaa beerihii sidoo kale keedadkii raashinka ku jirana way ka gubeen dadkiina way kala baxeen Ruushka markuu soo galay ninka odaga ciidankiisa waxay meesha kula kulmeen baahi daran qabowna waa jiray sidaa darteed ciidankii waxay ku qasbanaadeen fardihii ay wateen inay cunaan ay ku qasbanaadeen mudan gudoomiye Bonaparte wuxuu khasaariyay 450,000 oo askari ayuu khasaariyay oo meesha ku baabaaday taariikhda historiga militariga waxay diiwaan gelisay inuu ahaa jabkii ugu weynaa xilligaas maxaa yeelay raashin xumay u baaba'een oo u jabeen khubarada militariga markay fariisteen waxay soo saareen oraahdii caanka ahayd oo ahayd askari aanan la qoodin karin lama howlgelin karo sidaa darteed mudan gudoomiye eedeysanaha markaan dhahayna raashinku ka tirsan yahay waxa la rabaa in loo fahmo inay tahay xubinka ugu muhiimsan askariga dhaqaaqayo muxuu ahaa qof kasta oo muxuu ahaa ka tirsan argixisada oo shaqo qabanaya asaas soo qoodiyo asaas raashinka soo siiyo